السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay saakay oo subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 6 bisha Luulyo sanadka 2026. waa barnaamijkeennii koobaad oo aan idiin soo gudbinayno. haddaba wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa kuwooda ugu doorka roon. qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona waxaa yaraaday maraakiibtii ka gudbaysay marinbiyoodka Hormuz, iyadoo maraakiibta ay muujinayaan walwal iyo cabsi ku saabsan in aanay weli meesha aamin ahayn oo aanay si rasmi ah ugu heshiinin arrinka Mareykanka iyo Iiraan. haddaba saameyn intee la eg ayay ku yeelan doontaa maciishada caalamka iyo shidaalka intaba. wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray waan idin hayaa. waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbin doonaa dhowaan diyaarad helicoptera oo ku dhacday badda ku dhow Hormuz oo Mareykanku ay lahaayeen oo lagu waayay mid ka mid ah dadkii la socday ama askartii la socotay ayaa la sheegay hadda inay Mareykanka ka quusteen inay helaan askariga badda ku dhumay. haddaba xaalkiisu maxay u malaynayaan? tafaasiil baan idinkaga hayaa wararkaas. Israa'iil oo sheegtay inay qaab tijaabo uga soo bixi doonto qaybaha ay kaga jirto Lubnaan 2 aag oo ka mid ah si ay ugu wareejiso ciidanka Lubnaan iyaguna ay halkaa uga fogeeyaan kooxda Xisbullah. haddaba arrinkanu siduu ku hirgeli karaa? Xisbullah hise ma ogolaan doontaa? warkaas ayaan iyana barnaamijka ku soo qaadan doonaa. sheekada ugu xiisaha badan saakay barnaamijka oo aan la yaabay adinkuna aan la yaabi doontaan, waxaa qaaliyoobay baranbarada qaybo badan oo ka mid ah caalamka. halkii baranbaro waxay gaartay $8. sheeka la yaab laan idinayaa. sababta baranbarada u qaaliyooday maxaa lagu samaynayaa? maxay taraysaa? haddaba sheekooyin cajiiba oo arrinkan ku saabsan oo warbaahinta haysta, gaar ahaan telefishinka Al Jazeera oo warbixin weyn ka diyaariyey ayaanu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena saakay kusoo qaadanaynaa asxaabay. inta aan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idinla socodsiin. asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. haddaba barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta oo isniin aan idiin soo gudbanayno. taariikhduna waa 6 bisha 7 2026. wararkii ugu waaweynaa ee caalamka gaar ahaan arrimaha bariga dhexe ee soo kordhay ayaynu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa saakay marinbiyoodka Hormuz dayra ka timid. waa laga dayrinayaa xaaladiisa inkastoo weli aysan jirin wax dagaala oo markaa hadda meesha ka socda, laakiin warbaahintu waxay soo ogaatay inaanayba jirinba ama ay aada u yar tahay markab ka gudbay maalmihii lasoo dhaafay marinbiyoodka Hormuz. maalinkii jimcaha iyo sabtidii 8 markab oo Iiraan ka baqay oo iska joogay, kadibna wax soo dhaqaaqay ma jiraan. maraakiibtii maraysay marinbiyoodka aaday u yar tahay. sababtu marka maxay tahay? maxayse keeni kartaa? marka hore waxay keeni kartaa maciishadii adduunka oo cirka gasha, shidaalkii adduunka oo isaguna cirka gala. marka maraakiibtii baqaysaa leeyihiin, waxay leeyihiin meeshan nabadgelyo maaha, nabad maaha, meeshan safe maaha. Iiraan iyo Mareykan xilli kasta isku bilaabi karaan. marka anagu Mareykanna wuxuuna leeyahay dhanka Cumaan mara, Iiraan waxay leedahay car meel aanan ogeyn mara. marka waa ku wareerneen meeshina miina ka buuxda si la yeelo male. Iiraan iyo Ingiriis iyo Faransiisna meel ay isaga booteynayaan oo Ingiriis iyo Faransiis waxay leeyihiin maraakiibta miilooyinka jidka ku jiraan ka qaadno si ay usoo maraan. Iiraan waxay leedahay cid aan aniga ahayn oo meesha mari karta ma jirto, miinada ma adinkaa gashaday. marka arrinkaas wuxuu keenaa la leeyahay taraajuc, dib u dhac weyna ku yimid isticmaalka marinbiyoodka Hormuz. haddaba marka telefishinka Al Jazeera oo xogtan soo helay ayaa sheegaya saakay wargeyska la yiraahdo Bloomberg ee Mareykanka laga leeyahay ayaa xaqiijiyay bayaan rasmi ah oo soo baxay oo sheegaya in daboolka laga qaaday inay aad u yaraanayaan dhaqdhaqaaqa isu gudubka marinbiyoodka Hormuz halka maraakiibtii mari lahayd.
haddaba wararkii ugu dambeeyay wakaalada la yidhaahdo Bloomberg ee waddanka Mareykanka waxay sheegaysaa in xarakada ama dhaqdhaqaaqa wadadaasi maraakiibtii isticmaalaysay maranbiyoodka Hormuz ay weli la kulmayaan taxadiyaad ama caqabado xoog leh oo ku saabsan inay halkaa ka gudbaan. marka halkaa waxaa ka jirta marka mushkilada ka jirta marka haddaa aragto maciishadii oo weli qaali ah, shidaalkii oo qaaliyoobay, ha ka shakinin meeshaas dhibaa ka jira, weli wax heshiis rasmiya oo laga gaaray male. marka ilaahu halkeen waaye halkaas. marka wararka saakay cusub ay ka mid tahay. wararka kale ee saakay cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah maalin ka hor ama 2 maalmood ka hor waxaan idiin sheegnay oo warbaahintu ka hadlaysay diyaarad Mareykanku leeyahay oo helicoptera oo ku degtay meesha la yiraahdo Bahrul Arab, badda Carabta meesha loo yaqaano. waxay ku dhowdahay marinbiyoodka Hormuz. shaqaa meesha ka qabanaynay dheen roondan ku jirnay. diyaaradii marka ciladaa ku timid baddiya ku dhacday. 3 waa la soo badbaadiyay, midaan la waayay. waa taar markii idila mid badda lagu waayay mar hore lagu qadeeyaa idin moogtay libaax badeed iyo waxa badda ku jira mar hore kuwaas ku loqloqday. hadda marka Mareykanku waxay leeyihiin ustuul qaamis macnaha saldhig badeedka shanaad ee ciidamada Mareykanku khaliijka ku leeyihiin say u raadinayeen 100 iyo dhowr saacadood 14 kilomitir ama mayl ayaa saas looga raadiyay ninkii waa la waayay. mida marka wuxuu leeyahay maxaa laga raadinaa meeshaas alaab gaajeysana joogto mar hore markaas lafiisa faynteeri leeyahay. marka meeshaas halkaasuu maray aridatusu marka warkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. haddaba saldhigga shanaad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay inay joojiyeen inay raadiyaan askarigii Mareykanka ee lagu waayay meesha la yiraahdo Bahrul Arab ama badda Carabta deegaanka loo yaqaano. haddaba ciidamada badda ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u sheegay gelinkii dambe ee shalay inay joojiyeen howlgalladii ay arrinkaasi ku baadigoobayeen askariga Mareykanka ah. tan iyo maalintii Arbacada ahayd ee la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegay in diyaaradii helicopterka ahayd ee Mareykanka ee ku dhacday Bahrul Arab uu ninka la socday. ciidamada Mareykanku waxay sheegeen 102 saacadood inay ka raadinayeen ninkaas ilaa 14,000 oo mayl oo isku wareeg ah, kadibna way quusteen oo way waayeen. marka waxay leeyihiin 24 saac gudahood magaciisa la shaacin doonaa, ehelkiisana waa la wargeliyay. khalaas ninkaas badda ku bax meesha saa lagu qadeeyay leeyihiin ninkaas waa la waayay dheen, waa quusanay dheen, meel kasta ka raadinay ninka ma noole dheen. marka sheekadaas halkaas maray. diyaaradaas marka weli si rasmi ah faahfaahin badan lagama hayo. Mareykanku laakiin waxay yiraahdeen ma u maleynayno inay wax cadawtinimo ku dhaceen, laakiin baaritaan aan ku haynaa. baaritaankii wax natiijo weli ka soo baxay male, inkastoo warar duulduul ay sheegayaan in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay markaa gantaal ku dhufteen, laakiin taana Iiraan maysan ka jawaabin. marka warkaas isaguna wararka waaweyn ayuu ka mid yahay saaki. warka kale ee cusub ee saakay barnaamijka aanu ku soo qaadanayna wuxuu yahay arinta cajiibka ah hortaan xusuusiyo sheekada way noo soo socotaa. halka waxaa noogu sawiran barabaradii laga cararayay hal la dilo barabara guriga ku jirta lahaa. adduunka waa qaaliyooday, xabadii waxay maraysaa $8 la leeyahay. sheekayaab laan idinkaga hayaa. marka laakiin waxaan ka hormarinaynaa koonfurta Lubnaan. haddaba Mareykanka saraakiil ka tirsan iyo saraakiil Lubnaaneys ah iyo saraakiil Israa'iiliyiin ayaa waxay wadaan wada hadal ayaa u socda sidii 2 aag oo tijaabo ah Israa'iil ay uga soo bixi lahayd, ciidanka Lubnaan loogu wareejin lahaa, Xisbullah iyagu ay halkaa uga caysan lahaayeen. markii labada ku guuleysataan tijaabada ah ayaanu ka fakaraynaa inaan meelo kale idinku wareejino oo aan ogaano inaad Xisbullah ka adkaateen oo meesha la wareegteen iyo in kale. marka waxaa loo tuurayaa Xisbullah iyo ciidanka Lubnaan. waa fahmaysaa Mareykan iyo maaragtay Israa'iil ayaa dhexda gashanaya ciidamada Lubnaan iyo dowladda Lubnaan. marka way idinku wareejinaynaa, laakiin labadan tuulo bal tijaabiya.
xisbullah meelay aada usoo galaan waayo oo israa'iishu ay qaati billahi ka joogto nimankaan marka loo diray nimankaan markay xisbullah isma hori doonaan lagtaa la iska saari doonaa marka meesha marka lagu wareejinaa marka hawshaa socoto weli laguma wareejin laakiin shaqadaasaa la rabaa maalmaha soo socday la qabtaa la leeyahy haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyey dhexdhexaadin maraykanka uu wado ayaa waxaa wadahadallo ay u dhexeeyaan saraakiil israa'iiliyiina iyo kuwo lubnaaniyiin ah taasoo ku saabsan inay israa'iil ka baxdo laba aag oo tijaabo ah ama laba tuulo oo ku yaala koonfurta lubnaan haddaba arrintan ayaa aada u socota waxaa sidoo kale netanyahu laftirkiisa uu sheegay inuu qaban doono saacadaha soo socda kulan amni oo looga hadlayo arrintan sidii markaa loo ogaan lahaa ciidanka lubnaan inay ku filan yihiin hawshaas iyo in kale waaya sheekadaasu markaa iyaduna halkaas sheekada aan la yaabay adinkuna kollay waa la yaabi doontaan intii warka haysana iyadoo way og tahay laakiin anigu maaba ogeyn baranbaro intaasoo lacaga la kala siisanayo baranbaradii ayaa waxaa la leeyahay $8 ay xabadii joogtaa baranbaradii waaye halkan ku sawiran xabadii waxaa la gadaa $8 waa midda weyn midda aan weli qaan gaarina lagu leeyahay baranbaradii la kala saarayaa 3 ilaa 4 la kala siisanayaa rag iyo dumar waa isku lacag macnaha lab iyo dhadig aan ka wadaa lab iyo dhadiga baranbarada waa isku lacag baranbaradii la kala xadayaa adduunkia la geenayaa weliba baranbarada qaaliga ah gabgablayo laba rabo baranbaradii guriga joogtabana iska qabsato baranbarada nooc kala waaye hadda sii ogow baranbarada waxaa ku dhex jirtaa lagu leeyahay nooc aan baalal lalahayn oo aan biibi karin waxay aada ugu badan tahay Madagascar jasiiradda la yiraahdo meelaha badan oo afrikana in laga helo waa laga yaabaa Soomaaliya armaajada markaa soo jiido gadaal iyo meelahaas inaad ku aragto laakiin mid baalal leh laba rabo midda aan baalasha lahayn aan mucjiso dhigtaa laleeyahay xabadii waxay joogtaa $8 adduunka waaba la raadinaa haddaba marka aridintusoo sheeko la yaab leh oo laga diyaariyey oo telefishinka aljazeera saakay aada uga hadlayo haddaba waxaa leeyahay $8 ayay calaa waaxid ama xabadii ay joogtaa haddaba arrinkan waxaa la yidhahdaa baranbarada Madagascar haddaba waa arrin lagu faa'iidayba dadkii baranbarada ayay raadinayaan Madagascar waa la raadinayaa xabadii $8 la siinayaa haddaba warbixintu way sii socotay waxaa la leeyahay meeshaana mas-uuliyiin waddanka Australia ka tirsan ayaa bishii lasoo dhaafay ee June waxay markaasi sanadkan 2026 waxay ka shakiyeen aag dhan oo xiran oo dad yar ay galaan waa waddanka Australia markii ay gudaha u galeen ayay waxay arkeen baranbaro nooc kala ah oo halka lagu xanaanaynayo baranbaradaas ayaa loo sheegay qiimaheedu inuu u dhaxeeyo $100,000 ilaa $200,000 lacag u dhiganta marka lacagta Australia $200,000 waxay u dhigantaa $142,000 Mareykanka ah haddaba mas-uuliyiinta ayaa baaritaan ku haya arrinkan haddaba sababta ugu weyn ee baranbaradan ay u qaaliyowday oo adduunyada oo dhan loo kala safrinayo lacagta intaa leeg loogu qaadanayo ayaa waxaa la sheegayaa in arrinkan uu yimid kadib markii cilmi baarayaal dhinaca jaamacadaha ah ay ogaadeen in wax badan ay ku jiraan baranbaradan oo daawooyin ah marka laga hadlayo waxay daweysaa waxyaabaha la yiraahdo madhalaysnimada oo dadka aan dhalin ayaa waxaa lagu daweeyaa waxaa sidoo kale baranbaradan lagu sameeyaa in jeermiska iyo waxyaabaha ay ku jirto laga saaro kadibna gooni loo xanaaneeyo waxyaabaha kale ee la yaab kale ee baranbaradan lagu guulaystay inay badbaadisay kumanaan dad ah ayaa lagu leeyahay sanadihii lasoo dhaafay haddaba sidee ku badbaadisay koox injineera oo ka kala socday wadamada Singapore, Shiinaha, Jarmalka iyo Ingiriiska
ayaa ogaaday sida loo habayn karo baranbarooyinkan oo markaa looga faa'iidaysan karo. injineeradu waxay sameeyeen qaab ay baranbarada dusheeda ku rakibayaan qalab yar oo ay dhabarka ka saarayaan, kaasoo u ogolaanaysa baranbarada in ay marto meel kasta oo loo diro oo uu hagayo bahalkaas. waxaana lagu raadiyaa dadka dhulgariirka marka uu dhaco burburka hoostiisa ku jira. waxaa soo sheegaysa baranbaradaas iyadoo signal soo diraysa, qalabka lagu rakibayna uu sheegayo. haddaba dalal badan oo adduunka ka tirsan oo dhulgariirada kusoo laabtaan ayaa hadda bilaabay inay iibsadaan baranbarada noocaasa. wadamadaas waxaa ka mida Turkiga, Jabaan, Iiraan iyo meelo kale oo dhulgariirka u soo laabto oo ay Indonesia ka mid tahay. adduun intaa joogtid wax kasta waa arkaysaa. baranbaro xabadii joogtaa $8 maba la arkaayo, waaba la raadinaa. baranbarada nooca la raadinayo waa nooca aan biibi karin. baranbarada qaar maaragtay iska biibiibayso meelaha socota, laakiin tan ma biibi karto, baalal ma lah, laakiin ganihii way leedahay oo afka hore wejiga ugu xirnaa. waa baranbaro caadiya oon baalal lahayn. marka meesha kore ayaa qalab yar lagu xirayaa, signalka ay bixinaysaa lala soconaya. meelaha dhulgariirka marka waa la tababarayaa. meesha dhulgariirka dhagaxaanta hoostooda la gelinayaa bas. qof nool oo dhaqaaqaya oo jirkiisu kulul yahay markay aragto signal ay soo diraysaa. meeshaas marka hala fagaa la leeyahay, makiinadihii ha ka qaadaan alaabtii. sidaas ayaa marka hawsha ku soconaysa. adduunka waa kaas. marka xaalka adduunyadu maalin walba horumarkaasaa la gaaraya, meel walba waxbaa laga dayayaa. annaguna annagaa isku mashquulsan. waa adduun iyo xaalkiis. haddaba fakarkiina iyo aragtidiina sheekada bal kasoo dhiibta oo maaragtay waxay idinla tahay bal idinkuna soo qora. barnaamijkaygii ugu horreeyay saakay intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa asxaabay. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno, laagareeya oo sheergareeya barnaamijka. nabadgelyo.